سعر بركي قبوشنا بو والله سعر بركي قبوشنا مقالة تجيكا قال أفضل سيديسي هاي قال الله صعبة تبجوكسو مورال هاي قال كنا سوسو الله صعبة سعر بركي قبوشنا مرتن دليرو الصوماليات سعر بركي بالو قبوشني موبيلنا تيدله يبقى ما هي وابا المرن waxa uu ganacsadaa hab isaga u gaara oo aan cidila wadaagin Cabdinaasir Cabdilaahi oo ku nool magaalada Jigjiga waxa uu la yimi hal-abuur ganacsi oo ku cusub magaalada Jigjiga isagoo iibiya moobilada iyo elektaroonig kale gaar ahaan moobilada la salaaxo Cabdinaasir ma laha meherad ama goob yar oo ku ganacsado balse waxa uu alaabtiisa keenaa wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga isagoo ku soo gura alaabtiisa kartoono sidaasi ayaanu dadka kaga iibiyaa waxaanu ku gadaa alaabtiisa qiimo aad uga hooseeya inta ay suuqa ku yaalaan Cabdinaasir oo aan waraysi la yeelanay ayaa nooga warramay qaabkan cusub ee uu ganacsado walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabdinaasir Cabdilaahi Idris qaab cusub oo ku cusub magaalada Jigjiga ayaad u ganacsanaysaa wal qaabkan goorma ku dhalatay inaad san u ganacsato oo aad elektaroonig u iibiso madaxweyne Mustafa markuu dalka yimid baan ku amooday inaan dhalinyaradu waxaan ahaa tukaamadoodu ay gubteen berigii hore ee Taiwan ka shaqaysan jiray waqtiga wadanka waa ka cararay waa soo noqday madaxweynuhu soo yimid baan wadanka ku soo noqday wadankeenan oo nabadgelyo ah magaalada waxaan arkay ganacsigii baan ka bilaabay waxa ka bilaabay alaab raqiis ah $100 baan ka bilaabay $100 inaan telefoonada ku gado kambaniyada inta uu tago ayaa ka soo xaraashtaa $100 baan ka bilaabay hadda waxaan marayaa 4500 inaan ka siiyo telefoonkan taagan ee 12 ama ee 51 aaway waa kan ee 51 inaan siiyo 4500 oo kaliya marka sixir barki baan qaboojiyay shacabka deegaankeena si ugu faraxsan yihiin waad aragtaa kartoonka yar baan iibiyaa kambaniyada ka soo xaraashtaa markaasaan sixir barki ku qaboojinaya magaalada Jigjiga bartamaheeda 12 oo bir baa la siiyaa magaalada aan waa soo xaraashtaa meela kambaniyadaan u tagaa tujaarta markaas ka soo xaraashtaa markaasaan dhalinyarada dawladda khaasatan ardayda jaamacadaha iyo dhalinyarada soo dhan shacabkeena waad aragtaa si ugu faraxsan yihiin alaabtaas ka xaraashaa sixir barkiina waan qaboojinayaa waan babinayaa iyaga ila qaboojiyaba way ila qaboojinayaan dhalinyaro aad baan ugu faraxsanahay dalkayga inaan lacag badan aanan saaran oo ummadayda inta waqtiga lagu jiro adag inaan dadkayga ka jabiyo oo waxa yar uu Ilaahay iga siiyo dadkayga aan wax la cuno ayaan go'aan ku qaatay oo shacabkana la saayiro wax yar saarto aan ka biishado dadkayga waxa biilkayga aan ka helo ummadda dadkaygana aan qiimaha ka jabiyo oo wax ku qaaliyeen kaliya noolow inaan noqdo sidii kaliya noolow ma rabo in ummadda la noolaato rabaa laakiin dawladdeegaanka anu qaabka noocaas oo ganacsadaa Cabdinaasir moobiladani suuqa waxay ku yaalaan lacag qaali ah oo 8 ilaa 8 meelaha adiguna 4 baad siisaa ma kambaniyo waaweyn baad u ka soo iibsataa oo aad lacag jaban ka soo siisataa moobiladan waynu aragnaa waa moobilo wada eeya kambaniyada qaarkood markay arkeen inaan waxba dul dhiganaynin oo alaabtoodii uun iibinayo oo qiimaha ay ku keeneen wax yar oo shaaha intaan saartay aan iibinayo markay arkeen way iga dhimaan iyaguna qiimaha way iga dhimaan oo waxay iga dhimayaan waxay arkeen inaanan waxba saaranaynin bay arkeen inaanan waxba dul dhiganaynin oo shacabka la saayirayo markaas ay la saayireen iyaguna way la saayiraan saasaan u shaqaysanayaa si aad baan ugu faraxsanahay dadkayga inay igu faraxsanaadaan marka waxa baan igu filanba farxadda ummadayda deegaanka Soomaalida farxadoodan igu faraxsan oo wax iga iibsanayaan ay taageerayaan intaas ay deeqday lacag ma rabo dadkayga rabaa inay sixir barka inaan ka jabiyo lacag ma rabo maalmaha qaarkood inaan waxba ka helin baa laga yaabaa oo saa ku weydo laakiin intaas oo kun oo qof baa igu farxaysa farxadooda ay deeqaysa walaal ganacsiga noocan uu ku cusub yahay magaalada dadku bulshadu ma kula qabsatay imaka aad si fiican baa lagu farxsan yahay waa la isii sugaa waa la taageeraa anigana farxadoodaas baaban xiise gelisayba aad baan ugu farxsanahay lafteeda boqolkayga aad buu kacsan yahay way duceeyaan waliba way duceeyaan Sakariya Xanaftire telefishinka Sab Jigjiga